madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inaysan dadka ku khasbaynin inay xisbiya samaystaan balse taa bedelkeeda ay diyaariyeen wadiiqadii loo mari lahaa isagoo cadeeyay inay guddi hawshaas u qaabisan ay sameeyeen balse cid ku dhiirata la waayay taabagelinta arrintaasi waxa la yiri annagu Cabdiweli doon subxaanadu waxa qabo wada dimuqraasiyadda وسؤال سوما واحد نور شيء يسوي رئيس مدحوينه horta maxaad adigu hirgelin weyd waxaan maranayaa guddiga waxaan bilowray tibek waxaan magacaabay February 2016 February magacaabay laga saa laga jooga laba sano baa laga jooga marka anigu ana xisbi ugu soo biiro suuq ku sheegay ma aan oranin dadku waxaan leeyahay wararsiyaasad furta xisbiyana samaysta haddii dadku marka ayagu samaysan waayaan ee damaanaha iska waxaa la yiri faraska dalka waa keeni kartaa laakiin biyaha inuu cabo kuma khasbi kartid yeah you can bring the horse to the water but you cannot force it yeah ma khasbi kartid yeah macida ku istaagay tirix baa furanayna hasheega hadii dawladdu hor istaagto waseedi guddiga waa sameeyay waa wacdinay وهذه شيء كذا ورفرت وريال dhici weyd insha Allah hadda markii dadku dib u fahmaan wada hawshan bilaabtay hadda laga bilaabo lixda degmo waa dib u wanaagsan inay fahmaan wacyigooda dadku kordho meel fiican bay maraysaa ka bilaabtay waa rajaynaa marka in hawsha aad ku sii wadaan oo aad sii wadaan waxaan rabnaa marka hawsha aad wadaan waxa la yiraahdaa civic education ka wada yani xamraan inaad ka wadaan degmooyinkaas waxa weeye dadka wacyigelinta lagu wacyigelinayo dimuqraasiyadda iyo waxay tahay iyo qaabka loo wajahay in xoog la saaro oo idii wax xasuustaan bilowgii markaan nimid hay'adaha waxa loo imaan jiray EU-da iyo dawladaha loo imaan jiray waxay oran jireen guddigii gormaa la magacaabaya waxaa isla markii guddiga la magacaabo dhaqaalihi waa imaanaya يعني هذه دليل بسوا إيمانية ما أنت قد أمرنا نريد بيسي حيرها لا يابكري واحد واحد بلا إلى هذا ما صوماليا أو دمبا وحكسرين لنا election مركا national election كاس أيام مهمة تسينا هنا ما سينا إنه elections كدول الجبلية هذا الكلام مدحوينها بنتلان أيها كسو بيجمع يضع وقت كوبنا يكار سنتاي وقت يسي سوينا الله هذا الهيو أي سورة جلين بلنقات كيسيها labada 2019 inay Puntland ka dhici doonto doorasho hal qof iyo hal coda balse ilaa hadda saansaanteeda aysan muuqan la isuna diyaarinayo markii shanaad in xildhibaano 66 bilood oo matalaya shacabka Puntland ay soo doontaan madaxweynaha cusub ee Puntland Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic telefishinka RTN